السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما واني سلام يا خيارة channelka كحرن يجيتك عصبة. ما أنت وحني جعلها هنا نيلو وداقو. أرتيدا ولي بقارهان أرتيدا سنة كان جامعة ده جلسة هنا نيلو وداقو حن جعلها أما تبدأنو كلية ده هندكتا إني أوجادين كلية اللي كنا سين كلية أنفعيسة طاي وحن كوضع طبعا هذا الكيجا وحن ما تني وضع أفر كلية دوت أما أفر تخصص oo waxbarashada ku saabsan oo aad iyo aad wadankeeni shaqo looga helo waa tahay muuqaalkan waxa ku saabsanaan doonaa afar kuuliyadood oo aad fududahay inaad wadanka kaga shaqeyso hadii aan ku sheego hadaa tahay arday imika secondary ka baxay ama galaya jaamacada ama dhigtaba waxaan filayaa inuu muuqaalkan aad ku anfici doono oo aan yaani ka faa'iideysan doonto كلية كواد أنا سليه ودنكي مانتا عن أركي research نانكو سميه إن شاء الله جهرو وعي تاي وكلية human resource وكلية human resource لهذا أديات بكلية سي ودنكا وقشقي سهرنتي أو أنا أركي أو ودنكي وحن أركي إن دلنيتي يدتكي برتك human resource كلية لهذا أو شقدودو أي ديار تاي oo dad badan ay ka faa'iideysteen ma oran karo dhamaan wadanka oo dhan qofka kuuliyada human resource dhigta shaqadiisa uu helo uu faa'iideystaa oo shaqeeya ma oran karo ay way dhici kartaa dad bila shaqo ku ah kuuliyadaas laakiin inta badan boqolkiiba 70 kuuliyadan waa la isku raacay inay tahay kuuliyad wadanka ka shaqeysa maadaama wadanka in shaqo laan ka jirto oo ardayda wax bartay inta badan aysan shaqo wada helin boqolkiiba 30 ay helaan 70 bila shaqeeyeen وليو صدق كاسنا وح أي دكتور أي سكشقين أي واحد كلا كشقيان مركا كلية هي من رصاص سدي شقدي ذا الله هلا يسدي أي كسر تجشا يدسودين سان فليا هتو جواب تام كسير جواب تبغى حيتاي أما سدي واحد لقي بين سودين سدي كلية ذاك اللي في عنتاي ودعي كتاين شقدي ذا فضلات ودن كيا شقلان سكشتو هتو أم كسير جواب واحد تاي جواب كلية هي من رصاص وحقاتها هيدها أدونك مجال كستا والصومالي ده كمدنا هيدو ويمادا هذين نقطة هيدا عاونات هذين نقطة با هيدو سياسيات با ويجوجان ودنكي وحنا هيدو أي أدو قيميان قفك دكتا كلية ده أما كصوت تخصصي human resource صوبتو وقف كنت تخصصي بالآدمية وحي قابكي وحلو قود الله قابكي لو مارين الله ayaa kuliyada lagu dhigtaa waa tahay saas baa marka ka saacidaysa inay noqoto kuliyadani kuliyad shaqadeedu diyaar noqoto mishaar fiicanna lagu qaato sababtu waxay tahay hay'adaha wadanka ayaa imika inta badan ee shaqo fiican haystay hay'adaha u shaqeeya sababtoo dawladeenu ma dhisna shaqo fiicanna laga helo lacag yarsan u jirto waxaad maqlaysaa magaaladii qofka hay'adu shaqeeya uu kala degay wax la yiraahdo ama waa uu xaalkiisu fiican marka hadaba hay'adana kuuliyada badan hay'ada laga shaqeysto way jirtaa laakiin hay'ada inta badan waxa ugu fiican human resource faculty-ga labaad ama takhasuska labaad ee wadankeeni ka shaqeeya dadka bartayna wadanku u baahan yahay oo shaqadoodu ay fududahay waxa ay tahay waa project management oo isna la mid ah sida human resource-ka oo ay qaataan hay'adaha jooga wadanka Soomaaliya iyo kuwa wadanada kale ee jaarka allanahay joogaba sidoo kale dawladda way qaata ganacsiga sidoo kale waxa qaata wasaaradda businesska way qaata projectuna waa kuuliyad businesska kamid ah oo lagu dhigto sida mashruuc cusub loo sameeyo sida mashruuc cusub loo maamulo sida noo analyze garay oo loo qorsheeyo taas marka waxay ka saamaxday kuuliyadan inay noqoto kuuliyad ardayga bartaa ama ardayda barataa shaqadeedu ay fududaato hadii ay la xiriirto hay'adaha wadanka jooga iyo dawladda iyo ganacsatada sababtoo ganacsatadu mashruuc markay sameeyaan waxay u dhiibtaan qof project management yaqaan ama xirfad u leh ama takhasuskiisu yahay waata كلية صدحات حتى أني لو ذاكو أي ودنكي أدياد مهم وقاه ما حد كفلسة كلية هذا واحد نقول صعب وأكونتي
account weyn haddii aad tahay qof accountiga yaqaana accountigu waa luqad ku anala design garaysan English language kota balse waa qaybta xisaabtaasoo ganacsiga lagu xisaabinayo horumarkiisa qasaarihiisa iyo faa'iidadiisa iyo mashruuca uu kala bixiyo lacagta ku baxda haddaba ma filaysaa ganacsi aan xisaabiyo lahayn in wadankii jiro ma jirto sababtoo uu khasaaraya ma filaysaa ganacsato kasta inay yaqaadaan inay aqoon u leeyihiin qaybta xisaabta ee accountiga way adagtay taasi waa inta wadankeena ganacsato badan ay ku dhiban yihiin haddaba facultigan saddexaad kan ku sheegayna waxa weeyaan takhasuskani waa accounti haddii aad accountiga baratay waxaad ku furan fursado badan oo dadka aan u furnayn haddaad wadan ajnabi tagtay xitaa way adagtahay inta accountiga taqaanay sababtoo accountigu waa takhasus buu baahan yahay dadku inta badanna waxay moodaan xisaabta la kala jarayo la isku geenayo way ka duwan tahay xaaladdu sidaa bulsho maaha accountigu waa saas dawladda ka shaqeyn kartaa hay'adaha ka shaqeyn kartaa ganacsiyada yar baad ka shaqeyn kartaa ganacsatada waaweyn baad ka shaqeyn kartaa yani waa mid aan researchkiisa ku sheegay ama aan ku soo arkay insan soo koobay runtii inuu ahay mid dhalinyarta baratay aan shaqo la'aan aysan ahayn waa tahay haddii aan kula wadaago takhasuska afraad ama facultiga afraad aan isleeyahay wadankii aad iyo aad qofka bartay inuu ka faa'iidi karaa una ku shaqeysan karaa waxa weeyaan kulliyadda computer science kulliyadan computer science ku waa kulliyad aad iyo aad loogu baahan yahay oo wadankii maanta waa wadan teknolojiyadda adduunka horumartay ganacsi kasta wuxuu doonayaa inuu computer xogtiisa ku kaydsado oo manage gareeyo oo waa laga baxay buugtii la qori jiray daatada la gelinayay database baa la samaystay iminka website-dadii baa la samaysanaya social media yani e-marketingkii baa lagu soo geenaya adskii oo computer lagama maarmayo waxaad arkaysaa company aan computer line u shaqeynayba oo la mid yahay mid dadkii hore la shaqeynaya nidaamkiisa hore xogtiisa adag tahay waraaqahan wax ku qoraya daatada ay yani ku adag tahay in gacanta lagu qoraa system yaro fudud nidaam waxyaabaha teknolojiyadda oo dhan hadaba waxay lagu bartaa takhasuska loo yaqaan computer science fursadaha computer science aad ka heli karto inaad ku shaqeyso ay ciidad ka heli karto waxa kamid ah dawladda sidoo kale hay'adaha waad ka heli kartaa ganacsi weyn ganacsi yar adigu shakhsiyan waad ugu shaqeysan kartaa internet ka ku shaqeysanaysaa waxa loo yaqaan digital marketing leeyahay aad ka shaqeyn kartaa sidoo kale waxaad ka shaqeyn kartaa waxa la yiraahdo e-commerce sidoo kale news website-dad samaysanaysaa adu ay nooc baahidaada dhan kasta ka dabool doona haddaad barato takhasuska computer science ama loo yaqaano kulliyadda IT-ga waa tahay maanta waxaan jeclaystay afarta kulliyadood aan isleeyahay wadankii haddii la barto shaqo fudud si fudud baa shaqo lagu heli karaa wixii tala aad hayso haddii aan kulliyado aan ka tago wadanka si fudud shaqo looga heli jirto waad nala wadaagi kartaa barta commentiga wixii aad su'aal qabtana barta commentiga ka soo wadiin kartaa muuqaalka xiga insha Allah inaan niga soo jawaabo ama time lisiyo ayaan faliyaa insha Allah waxaan niga tagayaa kanaalkan haddii aad ku cusubtiin nagu soo biidan leenahay kanaalkan oo aad ku baran doontaan insha Allah waxyaabo badan oo ganacsiga ku saabsan aad ka faa'iideysan doonto insha Allah sidoo kale ha iloobin inaad walaalka faa'iidadan gaarsiiso oo aad u sheer geliso muuqaalkan hadduu muuqaalku cajabiyana in like nagu dhiirigeli waxaan niga tagayaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.